السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سو دhowaada saaxiibayaal meel kasta caalamka joogtaan inaad caafimaad qabtaan ayaan rajeynayaa. Maanta waxaanu qaadanaynaa casharkeennii koowaad ee qaybta advanced level. Casharka kan waa cashar aad iyo aad u muhiimsan, waa mid kamid ah casharada ugu muhiimsan marka la joogo suuqa forex. Haddii mowduucan aan maanta ka hadlayno aad fahantid, runtii waxaad maaragtay ka badbaadi doontaa khasaarooyin badan oo ku soo gaari lahaa, aad ayaan u feejignaan doontaa. Mowduuca kan waa liquidity maxaa la dhahaa, xagee laga fiiriyaa, meeqa liquidity baa jira, intaas oo dhan ayaynu maaragtay casharkan ku baran doonaa. Liquidity-da casharkan aynu ku baran doono maadaama isticmaalana afar systemyada qaar ma isticmaalaan, systemyada qaarna qayb bay ka isticmaalaan, laakiin inagoo qaarna aynu isticmaalin ayaynu haddana wada baranaynaa. Oo waxaa muhiim ah inaad wixii horta wada taqaanin, wax laga yaabo maalin inay maaragtay kusoo wajahdo ama aad suuqa kala kulantid. Marka ugu horeysa waxaa muhiim ah horta inaad fahantid waa maxay liquidity maxaa la dhahaa. Liquidity waa meel lacag taalo, yani meel baa lacag lagu ururinayaa, meel lacag taalo. Smart money, dadka smart money-ga isticmaala ama bangiyada waaweyn waxa inta ay badan bartilmaameedsadaan meelaha liquidity-du yaalaan ka hor inta aysan suuqa jihada dhabta ah u dhaqaaqin. Bangiyada waaweyn iyo dadka maaragtay traderada waaweyn oo maaragtay inagu maadaama aynu iska ganacsadayaal yar nahay, dad waxaa jira malaayiin iyo balaayiin suuqa gelinaya sida shirkadaha oo kale, bangiyada oo kale, kuwaas oo kale dee lacaga waaweyn bay meesha gelinayaan, lacagta waxba kama noqonayso markaas oo kale. Marka waxay bartilmaameedsadaan baa lagu leeyahay smart money-ga iyo bangiyada waaweyn meelaha liquidity-gu u yaalo ka hor inta ay suuqa jihada dhabta ah oo u dhaqaaqayo uusan aadin. Yacni suuqii adigii intii saas suuqa u warwareego ayuu maaragtay low aadayaa. Hal mar aqalkii noo soo saaro. Intuu suuqu saan oo kale u warwareego meelo liquidity saan loo dhigo ayaa dan adiga jihada beenta lagu diriyaa. Marka jihada beenta lagu diro oo liquidity-di halkan yaalay iyo lacagii waxa dhan la soo xaaqo kadib ayaa jihadii saxda ah suuqu aadaya. Markaas saas oo kale laga wada bangiyada iyo maaragtay smart money-yada iyo shirkaduhu waxay bartilmaameedsadaan meelaha liquidity-gu u yaalo, lacagaha lagu ururiyo ka hor inta ay suuqa jihada saxda ah u soo dhaqaaqin. Marka ereyga liquidity macnihiisu waa meel lacag taalo weeye, waa la bartilmaameedsadaa. Liquidity-ga marka la qaado kadibna suuqu jihada dhabta ah ama jihadii saxda ahayd ee uu aadi lahaa ayuu aadaa markaas kadib. Liquidity waa meeqa, intee liquidity baa jirta ayaynu sidoo kale baranaynaa. Maxaa liquidity loo yaqaanaa, xagee liquidity loo yaqaanaa, xagee baa laga fiiriyaa liquidity. Halkan waxaan ku qaadanaynaa ilaa iyo 11 liquidity inay tahay, waan jeclahay iduusan ka badnayn, ilaa iyo 11 meelood oo liquidity loo yaqaano. Meelaha qaar magacyada way wadaagaan oo yani waa lagu kala bedelo xoogaa, magacyo gaar ah ayaa loo kala yaqaanaa markii la joogo dee systemyadan kala duwan oo aynu isticmaalino. Waxaa jira external liquidity iyo internal liquidity. Internal liquidity-gu waxa weeye external horta waxa way dhaqaaqu markuu saayahay usan maxaa la loo yiro bullback soo qaato. Externalku waa haygaas oo externalka dhaqaaqa ah iyo loogiisaas labaduba waa external liquidity. Intaan ku dhex jirta waxaa la dhahaa internal liquidity oo lacagtu saas u qaadayso oo inta markay soo qaadana jihada saxda ah aadayso ilaa ay ka target gareynayso external liquidity. External liquidity-ga target gareyn marka lagu leeyahayna waa noocaas oo kale. Marka external liquidity-gu waa dhaqaaqaaga marka saa u qaadatid oo bullback yar ku soo sameeyo. Externalkiisu waa dhaqaaqaaga meeshiisa kore iyo meesha hoose, waxa loo yaqaanaa external liquidity. Sidoo kale waxa loo yaqaanaa buy side liquidity iyo sell side liquidity. labadaba waa loo kala yaqaanaa buy side liquidity iyo sell side liquidity oo labaduba halkan inoogu qoran. Buy side liquidity iyo sell side liquidity iyo external liquidity, saddexdaasi hal micno u wada taagan. Inkastoo tani hoos tahay kana ay kor tahay, external liquidity labadaba u qaadan kartaa waa liquidity-ga banaanka ka xiga. Internal liquidity-guna waa maxay? Waa in waxa halkan ku dhex jira inta aan lugtan korkeedana la jabin, hoosteedana la jabin, korna loo jabin aan hoosna loo jabin, inta waxaas ku dhex jirta waxa loo yaqaanaa internal liquidity. oo markii halkan internal isku soo bedelo jihadu meesha bond of interest loo baahnaa ay timaado
oo shiftigii waxaagii ay ku dhacaan kadib ayaad waxaad target garaynaysaa external liquidity-ga. marka ayadana saas u barta external liquidity iyo internal liquidity-ga. Equal highs iyo equal lows. Equal highs oo kale waxa weeye dhaqaaq saan u baxay oo kale ba high yar soo samaystay and then high-gii uu sameeyay ma uusan qaadin and then wuu soo noqday dhaqaaqa saan u noqday. halkan maadaama labada high ay isla egyihiin equal highs baa la dhahaa oo suuqa hadhow intuu soo noqdo ayuu labada high ba hal mar wada qaadaya. Equal lows-na waa iyadoo saasa oo dhinacii kala ah oo suuqa ka dhacay maadaama suuqu marna buy aadayo marna sell aadayo labada dhinac buu sameeyaa. low buu samaysan uu soo noqon hadana lowgii meeshii meel la mid ah baa laga noqonayaa saas wadana suuqu uu noqonayaa. markuu jihadiisa saxda ah tago wuu soo bedelayaa hadhowna waa la soo target gareynayaa labadii equal oo halkan yaalay oo equal low-ga loo yaqaanay. equal low iyo equal high-na sidaas ay kala yihiin ayagoo maxaa la dhahaa tafatirana chartiga waynu isla aadi doonaa insha Allah. Liquidity sweep maxaa la dhahaa? Liquidity sweep waxaa la dhahaa dhaqaaq ba hadda saanku ugu baxay bullback buu soo samaystay dhaqaaqa kan wuxuu damacay inuu korkaas u jabiyo buu damacay oo halkaas uu ku dul xirmo uu jabin waayay dhaqaaqu halkaas uu jabin waayay oo kuma dul xirmayo kadib muxuu sameeyay dhaqaaqu saan markuu u baxo bullback yar sameeyo in yar kanalku fiiqa intuu kala baxo ama kanalku haduu ka wada baxo xitaa baadi ahaan uu ma xirmayo meesha kadibna si sax ah buu ku soo noqonayaa jihadii buu bedelanaya. marka waxa lagu leeyahay dhaqaaqa kan liquidity sweep baa lagu sameeyay yacni toos laguma dul xirmin oo jihadu ismay bedelin kaliya sweep baa lagu sameeyay waa la sweep gareeyay hadaa maqashid waa dhaqaaqii bengur baa ka dhacday meeshaas oo kale waa alaabtii accumulation-ka manipulation-ka weeye manipulation-ka oo kale weeye iyo trade swing labadaba waa loo yaqaanaa. liquidity sweep-na waa la dhahayo liquidity-gi buy-ga yaalay oo buy side liquidity-ga halkan yaalay external liquidity-ga halkan yaalay ayaa la qaaday and then waa la soo noqday suuqu jihadii saxda ahayd ee uu aadi lahaa ayuu tagay markaas kadib. Inducement-ga tan waa laftirkeeda waa isku mid liquidity sweep-kaas ay la dhigmataa laakiin ereyada un ba xogaa kala duwan iyo sida loo isticmaalo sidoo kale trade swing-na ayadan laftirkeeda waa loo isticmaalaa. waxaa jirta weekly high iyo weekly low sidoo kale previous daily high iyo previous daily low. weekly high iyo weekly low waa maxay? last week hore suuqu waxa uu sameeyay laalo suuq waay asbuuci hore ilaa asbuuc kasta waa hal kanalkii asbuuca saanu u baxay soo saas ma aha kii asbuuca kan labaad wax laga yaabo habeenkii laga joogo inuu meeshaan oo kale ka furmay. marka asbuuci hore haygiisina waa kan waa la target gareeyaa lowgiisina waa kan oo kale isagana target ayuu noqdaa. weekly high iyo weekly low suuq muxuu sameeyaa marka saan halkan uga furmaya weekly high uu soo qaadaya uu soo noqonaya maadaama uu kan leeyahay weekly low target gareynaya markaas hadii uu sakan maaragtay intuu buy-ga qaado oo uu san qaadin selkana saan intuu baxo oo buy-ga soo qaado ayaa laga yaabaa halka ku furmo ku xirmo asbuuca ku xiga kan halkan ka sii furmaya alaabta CRT oo kale lowgii baa markaas qaadayo asbuucaas targetkaaga waa haysataa iyo weekly lowgaas ayaa la target galinaya maadaama weekly high la soo qaaday. marka suuqa badanka haduu weekly high qaado reversal baa dhaca weekly low haduu qaadana reversal baa dhaco hadana weekii hore ayaa isagana dib loo sii target galaya. daily-gana waa la mid waa sidii kanalkii hadda oo kale oo kanalkii weekly-ga waxa kale oo la siimida monthly-ga oo isaguna halkan nagu qoran weekly iyo monthly iyo daily saddexdaba maaragtay mid kanal baad u xisaabsanaysaa kanalkaaga markaad maaragtay fiiqiisa kanalka week-ga tagaysaa fiiqiisaas iyo maaragtay fiiqiisaas kore ama weekly ku ahaado ama daily ku ahaado ama monthly ku ahaade kanalka halkaas aad ka fiirinaysaa. haddii aad asbuuca kan halkan ka furmo oo haygaas ku hormaro oo suuqa la rabay jihadiisu inay sel noqoto asbuuca ku xiga saahna u soo baxaya ama asbuuca kana movement galayayo lowgiina ku daraya ama asbuuca ku xiga intuu kan intuu meelahaas ku xirmo asbuuca ka xiga lowga soo qaadaya soona saas baa way dhici kartaa. marka weekly iyo monthly iyo maaragtay iyo weekly iyo monthly iyo daily markii la joogo saddexdaba kanalada ayaa xisaabsanaysaa kanalka fiiqiisa kore iyo fiiqiisa hoose ba soo maaragtay calaamadisanaysaa markaasna waa ku target. hadduu suuqa halkan kaaga furmo maxaa la habris weekly high ama daily high ama monthly high la target gareynaya hadduu meelahan oo kale ka furmana lowga intii la soo target gareeyay markaasna high-ga dib loo soo aadi karaa high-gana dib loo soo aadi karaa isagana markaas.
marka saas isagana maaragtay ugu xisaabtami doontaa buy side liquidity-ga iyo sell side liquidity-ga labadana waan sheegnay. Liquidity run waa markii liquidity-ga xoog loo jabiyo meesha hadda aan ka sheekeynay oo kale external liquidity-ga si move lagu jabiyo. Drawn on liquidity maxaa loo yaqaanaa buy side liquidity ama sell side liquidity ama external liquidity. saddexda drawn liquidity waa dhigi kartaa waa meel maaragtay la target gareynayo oo kale saan oo kale hadda meeshaas kore ama meeshan hoose suuqa haduu meelaha dhexe marmarayo drawn liquidity-ga waa halkaas iyo halkan hoose waa external liquidity-ga oo kale waa maaragtay meel loo socdo oo suuqa soo qaadayo weeye loogu qaadi andan buhayga aadi ama haygu qaadi andan loogu aadi saas weeye. Drawn liquidity-na waa dhahan kartaa buy side liquidity waa dhahan kartaa sell side liquidity waa dhahan kartaa external liquidity-na waa dhahan kartaa intaas oo dhan waa isku isticmaali kartaa 1 2 iyo 3 iyo 4 intaas ma maaragtay waad isku isticmaali kartaa. equal high equal low-na waa wax jira laftirkooda saddexdaana mid kanalkooda ayaad u xisaaminaysaa iyo kanalkii hore highgiisa iyo lowgiisa maaragtay baad u fiirsanaysaa. Liquidity sweep iyo inducement-gana wax badan ma kala duwana. Hours liquidity baa jiro waa sidii maaragtay markaynu 4 hour-ka ugu fiican iyo 1 hour-ka iyo 4 hour-ka ayaa ugu fiican oo maaragtay badanka liquidity-da laga fiirsadayo. Liquidity-da ugu badan laga helana waa equal lows-kaas equal highs-kaas oo kale ayaa laga helaa hours-ka inta ugu badan. waliba 1 hour markii la joogo liquidity-ga ka fiirso 4 hour jihada ka soo hel 1 hour-na liquidity-da ka fiirso 15 minutes iyo 5 minutes fursadaad ka fulin doontaa. waynu gaari doonaa insha Allah casharka ku xiga ayuu inoo noqon doonaa sida suuqa loo samaysto intrada iyo sida loo qaato. marka hours liquidity-guna waa sidaas. marka waxaan u gudbin doonaa insha Allah charts-ka kadibna kulli intaan meesha ku qoran ayaynu isla eegi doonaa. waa meeqa liquidity 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 liquidity ayaynu soo eegi doonaa insha Allah. saaxiibayaal marka hadda maaragtay charts-ka u gudbi ribayaan xasuustay waxaan ka tagay session liquidity ama liquidity-da session-iska sida maaragtay Asian high Asian low London high London low ama New York high iyo New York low ayaguna way jiraan. waa liquidity waana la target gareeyaa suuquna wuu qaadaa and then markaas jihada saxda ayaa la aadaa. marka hadda charts-keena u gudbay doonaa insha Allah si sax ah ayaynu isku la fiirin doonaa liquidity-da kulli mid walba iyo nooca uu yahay. waxaanu ka soo bilaabi doonaa monthly-ga and then weekly then daily then 4 hour ila 1 hour ayaynu liquidity ka baarina. markaas kadib inta halka aan soo dhaxmarinayna liquidity-da equal high iyo equal low external iyo internal buy side liquidity iyo sell side liquidity intaba waynu isla soo eegi doonaayo maaragtay halkaas ayaan idinka wada tusi doonaa insha Allah. casharkana ma dheereen doono hadduu dheeraadana u dulqaata insha Allah maadaama uu yahay cashar aad iyo aad muhiim ah. horta suuqa markasta oo liquidity aad fiirsanaysid waxaa wanaagsan jihada suuqana inaad taqaanin iyo suuqa meesha aad u wado. suuqu hadduu baa yahay oo aad baa u wadid liquidity-da la qaadi doono waxay noqon doonaa liquidity maxaa la dhahaa sell side ah and then buy side-ka la aadaya. haddaa baa u wadid haddaa sell u wadidna sidaas la mid ah liquidity-da la qaadi doono waxay noqon doonaan kuwa buy side ah and then sell side-ka ayaa la aadi doonaa. mar walba horta waxaa muhiim ah suuqa iyo jihada aad u wadid. markii la joogo maaragtay monthly liquidity-ga waxaad cabiranaysaa kanalka monthly-gaaga high-giisa iyo low-giisa labadaas aad cabiranaysaa. kanalkaaga high-giisa iyo low-giisa ayaad cabiranaysaa. oo labadaas maaragtay waa monthly high iyo monthly low oo liquidity way labadooda waana la target gareeyaa suuqu uu target gareeyaa. saas ay tahay haddana waxaad ku xiranaysaa kanal range maaragtay theory-ga iyo kanalka iyo range-giisa iyo sida uu yahay iyo kanalka waxa lagu sameyn karo ayadana ha ilaawin. sidoo kale yearly liquidity-na way jirtaa iyo ayadana maaragtay waa la target gareeyaa oo yearly-ga suuqu meel buu aadi karaa ma garateen. marka hadda waxaanu fiirinaynaa bil intii high-geeda la qaaday and then low-geedana la soo aaday. hadda bishan oo kale low-geeda la qaaday aan inoo calaamadayo. bishan waa bishii October 2025 low-geeda lagu hormaray oo monthly low baa la qaaday and then high-geedii baa la aaday. monthly low baa la qaaday and then high-geedii baa la aaday sida aad u jeedaan. waana sidii CRT-ga oo kale ama candle range theory-gii. muhiimadda mar walba waxaa muhiimsan inaad candle-kana aad ku sii xiran kartid
kanalka kale. kan isagaa bishii hore haygeeda qaaday kanalka kan bishii hore haygeeda qaaday andana way ku dhexirmatay bishii labaad iyo bishii kalena lowgii ayay ku sii dareen ayaguna waaba intaas. monthly haygan ayaa lagu hormaray andana targetku wuxuu noqday lowgiisa bishan waa bishii Marso ee 2026 haygeeda lagu hormaray haygeeda waxa qaaday April andana May iyo June waxay isku raaceen inay lowga qaadaan oo lowga la soo aado. saasay tahay haddana suuqa jihadiisa waa ku muhiim suuqu maadaama hadda maxaa la dhahaa jihadiisa guudna sel bay ahayd oo saas markaad u soo akhrisid jihadiisa guud ayaaba sel ah andan lower high baa la rabaa dana lower low ayaa la sii rabaa inuu dhacdo. waa sida markii loo akhrinayo suuqa iyo order flowgiisa higher high iyo higher low markaad maaragti u akhrinaysid. saasay tahay haddana halkan hoose waxa ka jira meelo la soo target garin karo sida fair value gap kaas oo kale oo aynu casharka hore ku soo qaadanay target ayuu noqday gapku kan kale target laftirkiisa weeye oo gapka halka ku jira xaggaas inversion kala ku sii jira oo isaguna waa target kale ilaa ay kanalkaas ugu dambeeya haddaad order block ka dhiganaysidna waa meesheeda oo suuqu intaas oo dhan uu soo target garin karayo waa la soo aaday. marka casharkaas waa cashar kale iyana waxba isla aadin laakiin waxaan kuu sheegayaa mar walba inaad jihadana la fiirsatid. hadda waxaynu aragnay 4 bilood oo bil walba bishi kala hayga intay qaaday hadana bishi kala sii aaday. hadda bishan oo kale October lowgeedu waxa qaaday November December iyo January na haygeedii bay aadeen oo haygeedii ayay soo qaadeen. bishan oo March ahayd haygeedu waxa qaaday April May iyo June lowgeedii ayay qaadeen oo maaragtay asbuuca kan ayaa looga si xooga loogu qaaday. waxaana target gala liquidity-daas hoose oo kale liquidity oo kale hadda maxaa noqda halka kanalkan banaankan iska yaalo oo kale meeshan waa liquidity isagoo liquidity ah sidoo kale laftirkiisa hadana wuxuu ka sii beegan yahay meel gaab ah ama fair value gaab ah waana la iman karaa liquidity-gaas intiisa loo qaado oo gaabka la taabto ayaa dan waxa ka bixi karta buyga buy way ka soo bixi kartaa iyo kor suuq uu soo noqon karaa. marka kanalka halkaas waa liquidity kanalku markuu saas oo kale meesha uu yaalo kale waa liquidity oo saaran daciifka uu yahay kan waa liquidity buy side liquidity saxana sell side liquidity na wuu noqdaa buy side ku waa kaas kore oo kale waa buy side liquidity sidoo kale maadaama uu yahay buy side weyn waxaad u isticmaali kartaa drawn on liquidity oo kale waad u isticmaali kartaa iyo saas waa ku qoran kartaa waa dool waa meel loo socdo tan laftirkeeda dool baad ku qoran kartaa waa meel maaragtay weyn oo loo socdo oo la target gareynayo. sidoo kale waxaad ku qoran kartaa sell side liquidity oo laftirkeedu waa meel la target gareynayo waa sell side halkan laftirkeeduna waa buy side liquidity weeye buy side liquidity weeye oo waa la target gareyn doonaa hadhow mustaqbalka markii meelahan deeselkan laga soo noolaaday kadib ayaa buy side kaasna la target gareyn doonaa. kanalkan markuu saan meesha kale u yaalo oo kale laftirkiisa waa liquidity waa la qaadaa kan markuu halka hoose yaalo oo kale waa liquidity waa la soo qaadaya kuwan kale oo meelaha yaalo laftirkooda halka kan oo kale waa liquidity oo sell side liquidity sidoo kale drawn liquidity weeye ayadana mustaqbalka waa la qaadi doonaa oo maaragtay suuqu uu soo laabanaya. external range liquidity maxaa noqda external range hadda suuqa saanaad u soo akhrisanaysaa monthly maadaama joogna halkan aynu wax badan ka dhamaysan doonaa. external liquidity waxa weeye horta suuqa saanaad u akhrinaysaa adigoo ku akhrinaya higher high-gaaga iyo higher low-gaaga ku akhrin doontaa suuqa saanaad soo akhrinaysaa high kan low fiican moosan keenin high-gaana high-gaas kore kama usu dulmarin intaanoo dhan marka isku hal dhaqaaq ayay ku noqonayaan. kuwa dhexe maadaama ay kan ku dhex jiraan laftirkoodu bulbaag ayuu ku noqonayaa and then kan ayaa hadhow waxa uu soo target garin doonaa external range liquidity. external range liquidity waa maxay waa ranjiga aad haysatid banaankiisa intaas weeye ranjiga aad haysatid targetkiisa ranjiga aad haysatid qaybtiisa banaanka weeye oo external range liquidity baa lahayo uu target gareeyaa suuqu. sidoo kale waa buy side liquidity iyo sell side liquidity bay kala yihiin. marka kan waa external range liquidity oo lugta aad haysato banaankeedii weeye. xitaa waxaad dhihi kartaa external range high baad dhihi kartaa iyo external range low iyo external range low labadaba waad dhihi kartaa. haddaad rabtid waxaad dhihi kartaa external range liquidity
way ku wada noqonayaan buy side liquidity, sell side liquidity, drawn on liquidity oo labada gees ah labadaba waad dhaxan kartaa. marka monthly-ga saasaynu uga dhamaanaynaa waxyaalo badan baynu ka baranay. wax kale haddaan inoogu sii fiiriyo laal hadaynu maaragtay ka arki karno meelaha loo kale equal low ma yaalo laakiin kanalkaas oo kale waa liquidity, kanalka banaankan yaala kan oo kale waa liquidity oo suuq intuu qaado liquidity ayuu dib u soo baxaa. halkan waxa iga soo baxday liquidity sweep. liquidity sweep waxa la dhahaa dhaqaaqu marka uu saan oo kale dhaqaaqii hore ama kanalkii meesha yaalay ama sell side-kii meeshaas yaalay oo kale saas intuu uga dhex baxo oo liquidity buu ku soo sameynaya aadan wuu soo laabanaya, yacni kuma hoos xirmayo. kanalku markuu halkan marayay body ahaan buu ku maray soo maaha, body ahaan kuma xirmaya, marka wuu soo laabanaya week baa hoostiisa la dhigaya, week ahaan bay noqonaysaa. mustaqbalka hadhow isaga target noqon doona isaguna markiisa waa la soo target gareenayo haddana jiha kale laga soo aadi karaa. marka liquidity sweepna waa midaas, waa dhaqaaqu markuu maaragtay dhaqaaqii hore meesha ka saaro afwan aan ka dirtirno dhaqaaqu markuu dhaqaaqii hore maaragtay sweep gareeyo waa maaragtay wuxuu ku sameeyaa manipulation buu ku sameeyaa. dad baa la manipulate garanaya waxa la iska dhigay dhaqaaqan lagu hoos xirmay suuqu uu sell si aadi doono, suuqu sell ma aadayo liquidity buu ku sameeyay and then buy buu aadiyay jihada ayuu maaragtay markaas u bedelan doonaa ayaga. ama cancelkana la soo qaaday sell side liquidity-gana la soo qaaday and then buy side liquidity-gaas ayaa la target gareyn doonaa oo hadhow jihadaas aan maaragtay suuqu markaas aadi doonaa. saas weeye. sidoo kale waxa liquidity noqda kanalada markaan oo kale hadda halkaas oo kale madaxa iskula jiraan oo kale waa liquidity suuqu uu soo target gareeya high-gooda u qaadaya ama low-gooda and then uu soo noqdaa markaas oo maaragtay liquidity-ga ayagana waa loo xisaabiyaa. hadda xaggaan oo kale aan zoom weyn inoo soo geliyo meeshaan oo kale waxaa ku jirta equal highs baa ku jira, halka kana equal lows baa ku jira. labaduna waa liquidity waa la target gareeyaa suuqu intuu taabto ayuu ka soo laabanaya. markaa equal high-gan hadda labadaba waa la soo wada taabtay and then suuqu jihadii ayuu ka soo bedeshay uu ka soo laabtay. Soomaaliya equal high-gaas waa la qaaday and then sell buu soo aaday, equal low-gana waa la qaaday and then buy buu aaday oo hagan kor ah ayuu soo aaday. waxaan waa monthly marka joogtidna wuxuu noqonayaa wax weyn buu ku noqonayaa. sidoo kale halkan hadda saas u fiirisid monthly low-geeda la qaaday bishan waa goorma waa September 2023 low-geeda waa la qaaday, low-geeda yaa qaaday October baa qaaday 2023, high-geedii baa lagu sii daray, high-geeda yaa qaaday November baa qaaday. marka tan oo kalena waa u fiirsan kartaa. sidoo kale waa kana range liquidity oo maaragtay CRT-ga ahayd ayadana way shaqeysay. marka equal highs-kuna waa sidaas oo kale markay laba candle isku mid ah meel kore yaalaan iyo markay laba candle isku mid ah ay meel hoose yaalaanna waa equal lows ayaa loo yaqaan ayagana. aynu kasii gudubno waxaan u maleynayaa inta ugu badan halkan monthly-ga ayaa ka helnay maadaama chartisku uu isku mid yahay, candle-ku uu isku nooc yahay ee kaliya uu kala duwan yihiin waqtiga iyo sida uu u socdo ayuu kala duwan. candle-kan monthly-ga ahi 30 beri buu soconayaa, 30 beri ayuu soconayaa. weekly-ga candle-du markay tahayna week-gii wuxuu soconayaa 5 beri. candle-ka week-ga ah 5 beri buu socdaa, halka ka maalinta ahna uu socdo 24 saacadood buu socdaa. kan maalinta ahna waa 24 saacadood. inta kalena saas wax saameysan ka 4 saac 4 saacadood buu socdaayo waa 1 hour way. 1 hour kuna muxuu socdaa 4:15 oo 15 iyo 15 saas u socdaa oo 15 minutes ayaan kula. marka saas u socdaa. marka candle-du waa isku si bay u sameysmaan ee kaliya waxay ku kala duwan yihiin waqtiga ay soconayaan ama candle-ku waqtiga open-ka uu noqdo iyo waqtiga close-kiisa ayaa muddada u dhaxaysa ayaa lagu xisaabiyaa. candle-kaas waa monthly, candle-kaas waa weekly, candle-kaas waa daily, saasaad ku kala xisaabsanaysaa. marka hadda monthly-ga markaan joogno meeshan halkan hadda hal candle ka arkayno maadaama bishu maanta 30 marayso, markaan tagno daily-ga 30 candle oo daily maalinta soo tirino baan candle-kan open-kiisa helaynaa. close-kiisa wali lama gaarin laakiin open-kiisa meesha uu ka furmay sida saxda ahayd markaas baad helaysaa marka 30 daily soo fiiris. weekly-ga markii la joogana waa
afar week ka hor inay tahay baan jeclaa afar week ka hor bay helaysaa marka saas afar week oo kale afar candle oo weega ayuu u dhigmayaa markaas oo kale hadda weegan hadda socda iska dayno 1 iyo 2 iyo intii halkan u dhaxaysay I think inuu ka furmay markaas oo 8 June bay halkaas ka bilaabatay maadaama ay 7 beri ka dhiman ka maqan tahay halkan ay ku jirtaa labadii beri oo baalkii hadii laga saaro weekendka shanta kale halkan waaba kan halkan uu ka furmayba week ugu horeeyay waaba kanba June 1 maalintii ugu horeysay isniin bay noqotayba 1 iyo 2 iyo 3 waa saddexdaas week afraadna waa ka hadda socda oo maaragtay wax yar ay u dhimayeen meesha dheedka ka khaldanaamaya marka monthly joognay 30 bisu saaraya hadana waxay saaraya 26 June ba 30 ku dhamaanaysa oo maleelay I think marka saas ayaa u fiirsan doontaan I think inta ugu badan aynu helnay liquidity-da maadaama maaragtay de waxa ay raadinaynaba ay wax yar iska ahaayeen liquidity-du hadda waxaanu soo aragnay internal liquidity iyo external liquidity sidoo kale equal high iyo equal low soo soo aragnay liquidity sub soo aragnay indusmitiga price weekly high iyo weekly low daily high iyo daily low sida loo fiiriyo laftirkooda waa in tusay yani wax weyn maaha kanalka ayaa haygiisa iyo lowgiisa calaamadsanaysa saas ayaa noo fiirin doonta waxayna muuqaalka isku dheeran by side selsayna waa aragnay liquidity run liquidity how risk iyo sessionska ayaynu hadda fiirin doonaa inagoo weekly iyo maaragtay iyo dailygaana waa sii marinayaa dhimale weeklyga marka saas u joogtid kanalka weegiisa haygiisa iyo lowgiisa cabiranaysa haygiisa iyo lowgiisa ayaa cabiranaysa kii lagu hormaro maaha ka kale waxa calaamadsanaysa in lagu soo target garayn doono hadhow ama asbuucaas targetkaaga ayaad ka dhiganaysaa laakiin maxaan dhahay mar walba jihada suuqa waa inaad haysataa jihada suuqa waa inaad haysataa order flow-ga waa in uu ku waafaqsan yahay waxaan way shaqeynayaan laakiin probability ayaa loo fiiriyay boqolkiiba meeqa ayuu shaqeyn karaa ayaad u fiirinaysaa saas weey hadda week kan hadaynu eegno weegaas oo ahayd 18 May maalintuu furmayay weegan haygiisi week ku xigay baa qaaday and then lowgiisi baa la soo target gareeyay inta wixii ka dambeysay week lowgiisi ayaa la soo target gareeyay waana la qaaday oo weekii bisha June ayaa qaaday uu furmaysay ilaa maalintii shanaad miimsaaninta la caamilaas ayaa I think in la qaaday hadii maalintii shanaad maalinta afraad meelahaas aan leeyahay ayaa la qaaday marka saas weeye weekly high-gaaga hadii lagu hormaro oo weekly high lagu soo qaado hadhow targetkaaga waxa ku noqon doona weekly low-ga hadii low-ga la qaado targetkaaga waxa ku noqon doona high-ga hadda halkaan oo kale weekly low-ga la soo qaaday and then target waxa laga dhigtay weekly high-ga suuq muxuu sameeyay weekly high-gu soo qaaday kadibna uu soo kala wareegay halkaas saa u aragtaan haddaan calaamad ishaarada in tusiyeen waa kan weekly low weekly high-gina waa kaas high-gi baa lagu hormaray and then low-giisi baa la qaaday oo kanalka kana qaaday kana low-giisi high-giisa kana lagu hormaray and then low-giisi baa la qaaday saas weey yani order flow-gaagan waa ku xiranaysa maadaama order flow-gan hadda uu sell ahaa high-ga lagu hormaray and then low-ga la qaaday maadaama kan order flow-gu maanta kana uu buy ahaa low-ga lagu hormaray and then high-ga la qaaday marka kadibna uu soo kala wareegay intaas un weeye hadii aynu maartay daily dhahna waa sii fiirinayna waa isla intaas oo kale wax weyn ma ku kala duwan probability-ga ayaana inta ugu badan loo fiiriyaa suuqa jihadiisana ha ku haysto hadda maalintan oo kale fiiri daily high waa kaas hadda rabtaan in bahasha tabalartan aad toosisataan oo laga yaabo marka ugu horeysa trailing soo qaadato in isa ka noqoto shiftiga la taabo way ku toosmaysaa hadda shiftiga la taabatid way ku toosmaysaa oo saas ay ku noqonaysaa si toosan ay wax kugu sawiraysaa marka kaama qalqaloonaysa shiftiga la taabso maalintaas oo kale daily high-gi ayaa lagu hormaray waa aragtaan daily high-ga lagu hormaray and then marka daily high-ga lagu hormaro suuquna aan ku dhahay mar walba order flow-gaaga la soco waxa ku target ah daily low-gan ayaa ku target ah daily low-gana waa aragtaayo aakhirkii meeshii waa laga saaray mid walba saanaysa u xisaabsanaysa marka badanka waxaa maaragtay isticmaala conceptigan ICT baa maaragtay conceptigan aad u isticmaasha sidoo kale smart money iyo kuwaasina way isticmaalaan laakiin marka price action la joogo oo kale laftirkooda xitaa way isticmaalaan laakiin kasto ay kanalka mar walba
ayagu muhiimada gaarka ah ay siiyaan oo kanalkan hadduu kanal casri oo xoog uu soo weyn u yahay kanal kaloo cas bay rabaan in uu soo dhaco saas oo kale weeye marka price action kuna mar walba waxa uu suuqu ku shaqeeyo price-ka oo qiimihii ahaa iyo action-kii oo dhaqaaqii ahaa intaas weeye wixii baa magacintii laga bedeshay dadka lacag looga qaadaa marka free ku qaadaado insha Allah maaragtay wax laga ma ahan for hour hadaynu tagno oo hours liquidity-ga oo kale hours liquidity-ga oo kale maxaa noqon karaa meeshan oo kale markaynu daily-ga joognay waxa laga yaabaa inaynu arkeen high-ga kan oo kale laakiin for hour-ka waynu ka aragnaa for hour-ka kale liquidity-gaas intii la soo qaado ayaa laga soo noqon karay wayna dhici kartaa hadda halka kan oo kale hadaynu ka fiirino liquidity-ga for hour-ka hadda halkaas ku jira liquidity-ga ku jiray waxa equal highs ba halkan ku jiray waa la aaday suuqu uu soo target gareeyay hadda liquidity-ga halka dhexe iyo labadan equal highs oo halkaas yaala suuqu muxuu sameeyay halka hoose isagoo marayo oo externalkan meesha ka saari kara wuxuu sameeyay liquidity-gana loo laabtay waa la soo qaaday markaa kadib ayuu suuq soo baxay maxaa ku dhahay liquidity-gu waa meel lacag taalo smart money-ga iyo maartay bangiyada waaweyn waxay target gareeyaan liquidity-ga si ay suuqa jihadiisa saxda ah oo markaas u soo aado suuqa liquidity buu soo qaaday and jihadiisa saxda ahayd ayuu soo aaday hours liquidity hadii lagu leeyahay meelahan equal highs-yada iyo badanka ayaa ku badan markii la joogo hours-ka wala kan laftirkeeda xitaa wax yar waa mid equal high ayaa halka ku jiro waa la target gareeya kan laftirkiisu waa liquidity isku dhow yahay oo maaragtay trend line liquidity isna wuu jiraa trend line liquidity isaguna wuu jiraa inkastoo hadda maaragtay aynu ku soo darsan trend line liquidity-ga see maaragtay laftirkiisa u fiirsan kartaa maxaa la dhahaa haddana casharka maaragtay see laftirkiisa nagu dhex daro waa high-gaas u soo qabso ilaa low-gaas imow intaan maaragtay hadduu saas suuqu u socdo saas isku haysto waa trend line liquidity oo kale hadda inta dhexe I think inay noqon karaan trend line liquidity halkaan oo kale suuqu mar taabtay ka soo noqday mar kale taabtay ka soo noqday mar kale taabtay saas oo kale trend line liquidity-na waa la suuqu saas oo u taabto oo marka ugu dambaysa dhag intaan marka siiyo ayuu hadhow soo laabanaya jihadii saxda ahayd ayuu markaas aadaya marka kuwaas waa liquidity-da for hours-ka for hour-ka iyo 1 hour-ka ayaan ugu fiican meelaha inta badan liquidity-da laga fiiriyo maanta oo dhan wax cusub ma soo saarinay intaas weey liquidity-gu waa kana maaragtay week ka saas oo kale ah banaan iska yaal week banaan iska yaal daarto waa liquidity week banaan iska yaal waa liquidity mar laba week bay noqonayaan iyo meel wada yaala wax noqonayaan equal high ama equal low ay wada noqonayaan saas weey hadii maaragtay ay rabtid daily-ga iyo weekly-gana waa maaragtay kanalka high-giisa iyo kanalka low-giisa monthly-guna waa sidaas la mid ah external range liquidity-guna waa dhaqaaqi ay haysatay banaankiisa internal-kuna waa dhaqaaqa ay haysatay gudihiisa marka intaas weeye insha Allah taala wax rajeenayna wax badan aad ka faa'iideen liquidity-ga inta badan waxaad ka fiirsataan 4 hour 1 hour oo hours liquidity-ga kuwaas maaragtay maalinta maadaama maaragtay day trader darteena noqotid ma sheegin qofka scalping-ka waxa soo weekly-ga iyo daily-ga iyo meelaha target gareynaya monthly-ga ma sheegin laakiin inta badan inuu day trader baan u badanahay day trader hadaan nahay waxa u baahanahay liquidity-ga maalinta oo hours liquidity-ga ayaa naga badan iyo sidoo kale stations liquidity waa maxay waa Asian high Asian low London high London low ama New York high iyo New York low saas oo kale weeye hadda suuqaan oo kale shalay waxa uu qaaday Asian high-gaas uu qaaday oo liquidity baa lagu sameeyay Tuesday swing baa ka dhacday bengur manipulation intaas oo dhan waa dhihi kartaa Asian high-ga ayuu qaaday and then fursadii saxda ahayd ayaa markaas soo baxday suuquna wuu soo daatay jihadii markii hore u socday oo uu ku jiray ayuu sii aaday saas oo kale weeye casharkii shalay ka horeeyay ayaynu ku qaadanay accumulation manipulation iyo distribution baad maaragtay ayaad si fiican uga fahmi kartaa sessions liquidity waa high iyo low-ga oo session kasta high-giisa iyo low-giisa target bay noqdaan oo waa la qaadaa sidaas weeye marka casharkuna aad buu dheeraaday assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu inaad wax badan ka faa'iideen ayaan rajaynayaa qofkii su'aal qaba ama maaragtay wax falcelin wada wixii kala soo xiriiri karaa Telegram-kayga ama Instagram-ka labadaba meesha description-ka ay yaalaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu maalin wanaagsan